sideed siyaabood oo cilmi nafsi ah haddii aad samaysana dadku kugu wada jeclaanayaan. dadka qaar ayaa leh saaxiibo fara badan halka qaar ay leeyihiin saaxiibo kooban. qof kasta oo inaga midana uu jecel yahay inuu bulshadu ku dhex nool yahay, laga jeclaado, lagana xushmeeyo. ma jeceshahay qof walba oo aad la kulanto inuu ka helo dabeecadahaaga kuna raaxaysto la joogaaga markaad kala tagtaanna aad saameyn ku yeelato? haddaba waxaan kula wadaagayaa 8 siyaabood oo cilmi nafsi ah haddii aad samaysana dadkoo dhani kugu jeclaanayaan. qodobka koowaad, markasta xus oo sheeg qofkaad la joogto magaciisa. maxaad dareemi lahayd haddii qofkaad isku cusubtihiin kulankiisa uu mar walba kugu yeedho magacaaga? waa su'aale waxay kugu noqonaysaa lama filaan markaad qofaad ka filin xasuusto magacaaga oo uu kugu yeedho. caadiyanna arrinkani wuxuu qofka ka dhigaa mid dareema dareen wanaagsan. marka uu qofku maqlo in magaciisa loogu yeedhana isla markiiba wuu kaa helayaa, wuxuuna kuu dhageysanayaa si wanaagsan oo farxadi ka muuqato. haddaba habka ugu fudud ee dad badani kugu jeclaan karaan ayaa inaad marar badan ugu yeedho magacooda. qodobka labaad, ka samayso kalsooni xad dhaaf ah. haddaba sidee kalsooni qofka uga samaysan kartaa? waa su'aale. runtaada oo badata, aaminaadaada oo badata, iyo taageerida iyo caawinaada qofka aad u samaynayso ayaa qodobada ka qayb qaata inuu qofku ku aamino. cilmi-baaris la sameeyayna waxaa lagu ogaaday in dadka la aamino ay yihiin kuwa iyagu kasbada ama muujiya qofka inay yihiin saaxiibka kaliya ee u dhow. bini'aadankuna waxay dadka ku tixgeliyaan kuna jeclaadaan inaad u quudho fikir saliima iyo dhaqaalaba. markaad maskax iyo maal aad qofka ku taageerto ayay timaadaa xushmayn iyo kalsooniba. qodobka saddexaad, dhoolla caddayn u muuji adoo fiirinaya qofka marka aad isla joogtaan ama aad wada sheekaysanaysaan. dhoolla caddayntu waa habka qofku ku dareemo raaxo iyo dabeecsanaanba. marka qofku kuu muujiyo furfurnaan iyo daacadnimo dhoolla caddayn ku dheehan tahay markaad isla joogtaan ayaa sababta in qofkaasi dadka kale uga soo dhawaatid. sidoo kale markaad wada joogtaan kooxdada oo la wada qoslo, qofka haddaad fiiriso adigoo qoslaya waxay sababi kartaa in qofkaasi kugu jeclaado fiirada iyo qosolka aad israacisay. qodobka afraad, u dhageyso si dareen leh. su'aalna weydii markaad qofka isla joogtaan. markaad rabto inaad isku soo dhawaataan qof, habka ugu wanaagsan ayaa inaad siiso dareenkaaga adigoo si wanaagsan u dhageysanaya markuu hadalka wado, su'aalna weydiinaya. haddaad saas samaysana qofku wuxuu aaminayaa inaad saa'id u xiisaynayso hadalkiisa. markastana qofku wuxuu jeclaanayaa inuu kaa soo agdhawaado waqtina kula qaato. qodobka shanaad, ammaan oo wanaagiisa sheeg qofka iyagoo dadku kula joogaan. haddii aad sheegto waxyaabaha qofkani ku wanaagsan yahay iyagoo ay kula joogaan asxaab kale oo aan isaga aqoon badan u lahayn, waxay sababtaa in qofkani ku jeclaado. sidoo kale waxay bedelaysaa sidii ay ka aaminsanaayeen dadka kula jooga, iyagoo ka aaminaya qofka inuu yahay qof naxariis iyo dhaqan wanaagsan bale. waxayna siinaysaa awood kalsooni oo naftiisa u qaado adigana uu ku qaado, wuxuuna kaa dhiganayaa saaxiib uu aaminsan yahay. qodobka lixaad, caawi oo garab istaag xilliga uu xaaladda adag ku jiro. haddii aad u samayso wuxuu isagu u arko wax muhiima aadna tusto inaad caawinayso, wuxuu dareemi doonaa inaad tahay qof wanaagsan oo caawiyay xilli uu garab u baahnaa. waxaadna u samaysaa waxaad og tahay haddii aad u samayso inuu dareemayo farxad. haddaad intaas u samaysana wuxuu dareemayaa inaad tahay qof naxariis badan oo caawiyay xilli uu garab u baahnaa. qodobka toddobaad, ka daba samee qofka markaad isla sheekaysanaysaan ficilka uu sameeyo. ka daba samee qofku ficilka uu sameeyo. tusaale ahaan ficilada wejiga ee loo yaqaan body language oo ah ishaarooyinka iyo ficilada wejiga uu sameeyo markaas qofku. sanadku markuu ahaa 1999kii, cilmi-baaris ay samaysay jaamacadda New York ayaa lagu sameeyay 72 rag iyo dumar ah iyadoo la tijaabiyay markay wada sheekaystaan kadibna ficilada ay iska daba sameeyaan. xiriir intee lag ayuu saameynayaa. ugu dambeynna waxaa la ogaaday inay dadku noqdeen kuwa aad iskugu dhawaaday marka ay iska daba sameeyeen ficiladaas. qodobka 8aad ee ugu dambeeya ayaa ah inaad naftaada jeclaato. jeclow naftaada inta aadan rajaynin inuu qofku jeclaado, oo aqoonsana naftaadu inay tahay qof saxan, daacad ah. markaas buu qof kasta jeclaanayaa inuu kuu soo dhawaado, ku aamino, waayo adaa ah qof wanaagsan. waad ku mahadsantahay daawashada muuqaalkan. waxaana kaa codsanaynaa inaad channelka subscribe noo saartid. mahadsanidin.